magaalada Hargeysa ayaa laga daafuray hodheel cusub oo magaciisa la dhaho Goljano munaasabada xarigga jarista oo ay ku lamaanayd qada sharaf loo sameeyay mas'uuliyiinta iyo dadweynaha ka soo qayb galay daafurka meherada cusub munaasabadaasi waxa goobjoog ah mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda xisbiyada mucaaridka ah xubno ka tirsan golaha wakiilada guurtida iyo dadweyne tiro badan ugu horeyntii waxa halkaasi ka hadlay mulkiilaha hodheelka cusub ee Goljano Cabdiqaadir Ibrahim Maxamed waxaanu halkaasi kaga warbixiyay adeegyada ay bixin doonaan aniga ku hadlay magaca Goljano Restaurants waxaan ka furnay maanta farci labaad magaalada Hargeysa taasi oo waxa weeyaan aanu soo kordhinayno dhadhan ka duwan dhadhanadii hore dadku yaqaaneen nadaafad ka duwan nadaafadii hore service iyo raaligelin taasoo aanu ku nahay way arag muddo badan ka soo shaqeynayay mataqaanay qaybta restaurantiska dadkuna ay aad iyo aad u garanayaan qaybta koobaad branchka koobaad ee ku yaala Boorama oo ay uga barteen service aad iyo aad u sareeya oo ay dadku markay yihiin nadaafad iyo waxa weeyaan dhadhan iyo shaqaale ku raali geliya tii ayaanu maanta xagga caasimadda ula soo kacnay oo aan rabnaa in caasimadda waxa weeyaan dhadhan wanaagsan iyo dabcad bulshada aadka iyo aadka u tirada badan ee ku nool caasimadda Hargeysa inaan waxa weeyaan u soo kordhino marka maantana waxaan marti qaadnay wasaaradaha dawladdu ka koobantay dhamaanteed wasaarad kasta waan invite garaynay waan ku mahadsanyihiin dhamaantood way naga aqbaleen wayna soo ajiibeen waanay si fiican baana loo wareystay wareysigooda waa dhageysan doontaan cuntada ay kala kulmeen meesha dhadhanka iyo dhammaan wixii dad badan 180 qof aan marti qaadnay oo aan invite garaynay 180 qof iyo 80 kale oo waxa weeyaan mataqaanay ku soo dul dhacayba waanu baahi tirnay maanta waxa weeyaan cunto fiican qof cabanaya uma malaynay inuu jiro geesta kale iyaguna waxa halkaasi hadalka iska daba qaatay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland xisbiyada mucaaridka ah iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliland waxaanay halkaasi ku bogaadiyeen mulkiilaha meherada cusub ganacsigaasi uu ku soo kordhiyay magaalada Hargeysa runtii aad baan u soo dhaweynaynaa mulkiilahana waxaan leenahay ilaahay meel khayr qabtaa kaaga dhigo waa hodheelkii Goljano ee labaad ee maanta meesha laga furayo marka waxa weeyaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa casuumad heer sare iyo halkan bixiyay cunana waa tayo cunadu weeye aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa hodheelka Goljano ee hilibgeelaha ah waa hodheel caan ah oo laga yaqaano markii hore wuxuu ka furnaa gobolka Awdal magaalada Boorama maantana wuxuu ka furay caasimadii oo Hargeysa furitaanka Goljano kii labaad ee laga furay magaalada Hargeysa waa hotel aad iyo aad u qiimo badan oo tii hodheelka lagu furayay Goljano ka qayb galay waxaanu helay qada aad iyo aad u wanaagsan oo macaan oo hilib geel ah oo aanan horaba u arag geesta kale mid ka mid ah shaqaalaha hodheelka cusub ayaa dadweynaha ugu bishaareeyay inay u hayaan adeegyo kala duwan oo qancin doona dhammaan macaamiisha sharafta leh waxaan ugu bishaareynaa Goljano Restaurant inay ka heli doontaan adeegyo kala duwan sida breakfast quracaha qadooyinka iyo cashooyinka oo standardkii ugu dambeeyay leh hodheelkani cusub ee Goljano ee laga furay magaalada Hargeysa ayaa qaybo kale ku leh qaar ka mid ah gobolada Soomaaliland Axmed Nuur Ciise telefishanka bulsho Hargeysa